Washington DC ma ahan magaalo ama state balse waa degmo loo asteeyay in ay noqoto xarunta looga arrimiyo waddankan Mareykanka. waxaa loogu magac daray George Washington oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee uu waddankani yeesho, hoggaankii ciidanka wakhtigaas iyo aabbayaashii waddankan. District of Columbia magaaladan waxa ay ka abuurantay dhul uu Maryland State ugu deeqay dowladda dhexe 1791kii. duleedka DC waxaa ku yaala dhisme ilqabad leh si casriyana u dhisan ahna hoy lagu kaydiyo aaladaha ay aadamuhu u isticmaalaan duulimaadka, haddii ay noqon lahayd mid ciidan iyo haddii ay noqon lahaydba mid sifil ah. waxaa ka mid qaar adduunkan aynu ku noolnahay ka geystay xasuuq ba'an, halka qaarna ay safka hore kaga jiraan badbaadada nafta iyo hantida aadamaha. sidoo kale maadaama uu ilaahay aadamaha ku manaystay maskax iyo garaad u baahan kobcin joogto ah iyo korodhsi aqooneed, waxaa sidoo kale aan meesha ka maqnayn aaladaha satellite-ka oo loo isticmaalo sahminta meereeyayaasha koonkan aynu ku noolnahay. waxyaabaha ay indhuhu isla markiiba qabtaan waxaa ka mid Concord oo ku timid heshiis dhex maray labada waddan ee Faransiiska iyo United Kingdom oo lagu magacaabo Anglo-French Treaty. samaynteedana dabcan isla labadaasi waddan ayaa iska kaashaday. dayuuraddani waxa ay duulimaadkii ugu horreysay samaysay 1969kii, waxayna bulshada caalamka u adeegtay muddo dhan 27 sannadood intii u dhaxaysay 1976 ilaa 2003. dayuuraddan waxa ay ku duushaa xawaare dhan 1532 mayl saacadiiba, oo ah xawaare 2 jeer ka badan xawaaraha dhawaqa ama the speed of sound. sida caadiga ahna waxa ay qaadaa 29 ilaa 128 qof markiiba. markii ay ugu dheeraysay London ilaa New York waxa ay u kala socotay 2 saacadood iyo 56 daqiiqadood. haddaba waxay howlgab noqotay 2003 kadibna hoy looga yagleelay isla goobtan. Concord waxaa lagu xusuustaa u adeegidda aadamaha xagga duulimaadyada, waxaase dhinaca ku haya B-29 Enola Gay
uu ah dayuuradii 1945 magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee waddanka Japan ku dhufatay qumburuduriyihii ugu horeeyay ee abid loo isticmaalo dagaal kaasi oo galaaftay in ka badan 140,000 oo qof isla markaana soo afmeeray dagaalkii labaad ee dunida kadib markii Japan lagu khasbay in ay isdhiibto. Discovery Shuttle waa tii saddexaad ee 5 aaladood ee noocan oo kale ah ee ay NASA hawlgelisay. waxaa ka horeeyay Columbia iyo Challenger. haddaba duulimaadkii ugu horeeyay waxa ay samaysay 30kii bishii 9aad 1984 27kii sano ee ay shaqaynaysay waxay samaysay 39 sahmin oo ka dhigaysa aaladda ugu sahminta badan abid. ugu dambeyntiina bishii 2011 ayay ka baxday saaxadda sahminta adduunka hoyna looga yagleelay isla goobtan. waxay ka turjumaysaa horumarka ay aadamuhu ku tallaabsadeen waxa ayna dhiirigelin u tahay jiilasha soo socda.